kormeerkan ee xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Baran ee lagu soo doortay doorashada qof iyo cod ku soo mareen qaar kamid ah goobaha danta guud ee degmada Baran ayaa ujeedkiisu aasay u kurgeli lahaayeen baahiyaha asaasiga ah ee qabaan bulshada degmada Baran waxaana kamid ah goobaha ay soo kormeereen saribada weyn ee magaalada Baran buundada isku xirta labada dhinac ee magaalada Baran iyo waliba ceelka weyn ee magaalada Baran waxayna warbixino ka dhageysteen qaar kamid ah bulshada magaalada Baran iyagoo bulshada uga warbixiyay xubnaha cusub ee golaha deegaanka baahiyaha ay qabaan sidoo kale waxay aad u soo dhaweeyeen bulshada magaalada Baran xubnahan cusub ee dhawaan la doortay halkan saaka waxaan ku marinaa xildhibaanadii cusbaa ee degmada Baran runtii qaybahooda kala duwan oo jeedkaygu waxa uu yahay inaanu la wadaagno degmadii waxyaabaha ka jira ee xagga nolosha iyo waxyaabaha waxqabadka ay ku nool yihiin sida saribada hilibka ugu soo horeyna saaka iyo khudaarta waxaan ku xijinay ceelka Barameed waa meeshii saddexaad oo ah bridge hadda ka hor la sameeyay oo u gudba qabuuraha intii laga soo wareegi lahaa meel fog bridge-kaas hadda musnadib casreen lagu sameynayo runtii waxa weeye anaga xildhibaano cusub baan nahayo golihii deegaanka degmada lama dhisin laakiin waxaan rabaa inaan la sii wadaagno sahanka iyo nolosha ummaddu ku nooshahay iyo waxqabadka ay u baahan yihiin intaasaan runtii rabaa inaan la sii wadaagno waxaa nooga muuqanaya saribada dayac fara badan oo ah dadkii oo bannaan qorraxa fadhiya hooyooyinkii dumarkii nooc walba ay yihiin khudaarleydii iyo kuwii hilibka gawaanka meel aad u dayacan haddii habaa soo dhaco ay ku dayacan yihiin haddii qorraxi timaado ay ku dhibtoonayaan qorraxdii meeshaasi markaa godadkii biyaha marka la dhaqayo dee ay ku shubmi lahaayeen ma laha meel la harsado ma leh roobkii iyo qorraxdii iyo dabayshii intaba runtii way u dayacan tahay halkan bridge-kan isku tashi buu doonayaa ceelku wuxuu rabaa isku tashi wax lagaga qabto nadaafadiisa dhismayaasha ku burburay iridaha ka xidhmay oo ciidda ka tuulantay runtii marka waxa weeye saddexdaa goobood baan maanta booqanay dadku waxay u baahan yihiin runtii waxqabad dhab ah insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala dadkaana soo doortay bacdka noo taagnaa shanaadkii May ee doorashadii ahayd in insha allahu tacaala waxaan saaka oo booqanay qaybo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan magaalada Baran anaga iyo saaxiibada iyo xildhibaanada golaha deegaanka ku soo baxnay dhamaantood waxaanu dadaal dheer iyo discussion fara badan kadib waxaan isla qaadanay inaanu goobaha soo booqano maadaama dadku iyaguna soo doorteen iyagana inaan la dareen noqono intaas ay qodobkaygu daarnaa saaka u daarnaa ujeedadeedu ahayd hadda waxaan joognaa bridge-kii uu waday injineer Isxal ilaahay khayr siiyo hadda ka horna noo dhisay garay isagu barnaamijkaas oo madaxa u ritay 2004 bay ahayd markii uu injineerku wadadan sameeyay haddeena waa dareemi kartaan waa 2003 baa lagu jiraa marka saaka sayladii aanu soo booqanay iyo ceelka Baramood aan soo booqanay iyo halkan aanu taaganahayba hadda meeshan aan taagnahay shaqo way ku socotaa laba goobood waa ka nimo oo Baran wuxuu u baahan yahay magaalada Baran ceelkeedu wuxuu u baahan yahay dayactir fara badan buu u baahan yahay sidoo kale waxaan soo booqanay saylada maamooyinka oo bacadkii fadhiya iyo magaalada oo saylada ugu weyn oo magaalada hilibka khudaarta lagu kala gato ah waa meesha kaliya hadda dadweynuhu magaalada Baran ka qaataan ay tahay meeshaasna waxay u baahan tahay runtii wax qabad fara badan waxaan insha Allah taala ilaahay markaan la kaashano kadib aanu tawakkal saarano waxaan ku dadaali doonaa ujeedin fara badan bixin doonaa markasta meesha inaanu insha Allah taala wax bedel ka sameeyno oo qodob waxaan ku la dardaarmayaa magaalada Baran sidii caanka ku ahayd oo khayrka u jeclaan jirtay in wadada xoog la saaro runtii waxaan nahay xildhibaanadii cusbaa ee golaha deegaanka ee doorasho qof iyo cod ku soo baxay saaka waxaan indheendheen iyo kormeer ku sameynay meelaha arrimaha bulshada ee runtii sida saribada iyo ceelka iyo waxa la yiraahdo bridge-ka runtii saddexda goobood saaka ayaan soo marnay markaan ku horeeyo saribada dayac fara badan baa jira oo meesha saribada oo ognahay waa meel yar oo kooban oo runtii dadka aan qaadayn dadkaasuna bacad bay fadhiyaan ceelkana si la socono runtii dee waa ciid baa buuxisay oo ila baneeyo budoonayaa
tan ugu weyn hadeer aan joogno waxa weeye waa bridge ilaahay khayr siiyo nabadoon isxal runtii bridge-kan waagi horena isaga kii hore oo jabay isaga kulay gacanta ku hayay hadeerna waxa weeye waa la balaariyay kii baa la balaariyay marka runtii iska wax u qabso buu ku wadaa bulshada barameed iyo dhammaan dadweynaha meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan bridge-kan bridge aad muhiim u ah runtii waxaan booqasho ku tagnay goobo ka mid ah meelaha public places-ka ah ee magaalada ay ugu horeyso sariibada magaalada oo ah meesha ay hooyooyinku ku ganacsadaan kawaanka geela sidoo kale khudradda sidoo kale waxaan booqasho ku tagnay ceelka iyo sidoo kale bridge-ka magaalada ama buundada waxaan soo aragnay runtii baahiyo aad u fara badan sidoo kale hadda waxaan joognaa bridge-ka magaalada oo ah meeshii magaalada isku xiraysay siiba goobihii aadka u muhiimka ahaa sida qubuurihii oo kale ceelkii oo kale buundadaas oo si iska wax u qabsa ah ay u dhisatay bulshada barameed markii hore hadeerna dib habeen lagu samaynayo oo dhismaheedii socdo waxaan jeclaan lahaa inaan ka soo wada qayb qaadano dhammaanteen arkaysan oo birta halkaa ku xiran bridge-ka ku xiran iyo qoriga ku xiran iyo waxa dhoon ku xiran qalabka halkaa yaalla haweenka magaalada bixiyey raggu 10 kama aha haweenka ilaahay gargaaro si hadda waxa yaro u dambeeyo kooban baad soo haray qalabka oo yaalla biyaha oo yarano intaas aan doonina sidoo kale waxa loo baahan yahay in la darder geliyo wadada ceel daahir ceeri gaabo oo waxa weeye wax qabadkeedii runtii in badan maaragtay sanado badan uu qaatay oo bulshaduna aad uga baahan tahay in maaragtay dhameystirkeeda taasna oo maaragtay madaxweynuhu mar balan qaaday inuu waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan lagu dhisi doono bulshada reer barameed ama waxa weeye sanaag oo dhanna iyaguna ka dhuur sugayso dhameystirkeeda wadada ceel daahir ceeri gaabo nagu aragtaan meeshaan fadhino buushashkana waa aragtaan inna loo dhiso nolol waasiciyo ugu baahan roob ma celiso maxay tahay waadna aragtaan waxa yar aan meesha ku fadhinana waadna aragtaan khayr Allah idin siiyo anagu isla firshadii iyo sariibadii iyo hawlaheeda anaga ruuxayagu waxaan nahay qudradleyda marka hilibluha iyo qudradu way isdhinac joogaan waayo waa isku tiirsan yihiin oo waa shacabka meesha u wada baahnaa labada adeeg sidoo iyagu halkan ay joogaan anagu banaankaanuba fadhinaa marka haddii ilaahay dalkeena hooyo inaka siiyo dhaqaale waa u baahnaa ruuxooyinka hoosooyinka macnaa aanu harsano qorraxda iyo dabaysha ka joogno sidoo kale way idin soo dhaweynaynaa Allah idin garabkiina Allah galo waxa la wixii dalka laga qabanayo inaanu wixii kala qaban waa u taaganaa salaamu calaykum soo dhaweynaya marka hore xildhibaanada cusub waxaan leeyahay soo dhawaada ma sha Allah waa idin soo dhaweynaynaa oo idin garab taaganahay anagu meeshaan baan joognaa wada aragtaan waa kawaankii geela oo lagu shaqaysan jiray hilibka waagi hore asaaskeedii dawladda baa inoo ka tagtay intii ka dambeysay 2 jeer baa wax laga qabtay mise hal mar waa nagu ciriir oo meesha way yarto markaan dhowrtood ku qaadano waa mid naga yar dhaqaale saa u baxsan oo noo yimaadaan ma jiro anaga xataa dhaqaale kuma helo laakiin anaga uun baa waxaan maadaama aan ku shaqaysano waxaan ahmiyadda saaraa in aan hagaajinteeda iyo daryeelkeeda iyo maxaan ku raadiyay jeer jecel haddana wax badan bay u baahan tahay marka roobku yimaado kale hilbahan oo qoodkaan oo kale uu naga qoyaa maxaan ku ilaahay tuugadu marmar way noo soo dhacdaa hadana wadiyo iyo xilin tuugadu soo dhacdo way gaabantay xagga dambe ka soo dhacdaa wax badan baan la ka qaatay xataa radii awran soo qalay beedi waa la qaatay marka waxaan u baahanahay wax walba oo maaragtay loo baahan yahay waxaan u baahanahay har